darawalka gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliland Cabdi Cabdilaahi Aadan oo waraysi gaar ah siinayay telefishinka Saab TV ayaa beer amuur ku tilmaamay warar maalmihii u dambeeyay lagu qorayay warbaahinta ay bulshada ku xiriidho oo sheegayay in wadanka uu ka taariibay. Cabdi Cabdilaahi waxa uu sheegay in safar kooban oo uu ugu baxay wadanka Turkiga kadib uu wadanka joogay xilliga warbaahinta lagu qorayay in dalka uu ka taariibay. kaas waa warar been ah oo saliyad raadtoona lahayn oo wax la wax ka jira aan jirin. taasaan ka leeyahay waxay ku keeneen baasle dadka waxa qoraya waxa jirtay safar yar oo gaaban oo 7 cashaan ugu baxay wadanka Turkiga oo fasax 7 cashaan qaatay fasaxaasina muddadiisa soo dhamaaba aan ku soo noqdayba xilligii wararkan sheegayana xilli wadanka aan ku sugnaa oo gudihiisa joogay baa tiga inaan meel inta isugu soo galay sakadiisa inta adigu naxday adigu tiri war Cabdi warkan la sheegay maxaa ka jira adiguna wadigu ogaadeen aan ku yiri war halkan aan joogay markii laga sheegay waxan waa darawalka madaxweyne Siilaanyo oo uu soo jeediyay warbaahinta in ay joojiyaan been abuurka ay madaxda ka qorayaan isagoo sheegay in marar badan uu arkay warar laga qorayo madaxda oo been abuur ah wax badan baa been la qorqoro aan akhriyay laakiin si tii ugu darneed markaan arkay mid aniga igu saabsan waxay igu noqotay wax la yaab leh dadka qoraya waxaan uga digayaa in waxyaabaha madaxda qaranka maalwalba ka sheegayaan inay joojiyaan waxaasina wax manfac u leh ummadda ay ku bedelaan. Nuruddin Culijoog, Saab TV, Hargeysa.